السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. دمانتنا أصحابتي وين سلامية. maanta waxaan ka hadli doonaa TradingView. TradingView horta waa website lagala socdo qiimayaasha iyo chartku meesha ay marayaan, iyo sidoo kale waxaa lagu talagalay inaad lagu analyze gareeyo ama suuqa lagu akhriyo. Marka TradingView waa muhiim inaad barato misana aad sida loo isticmaalayo waxa aad ogaato. marka insha Allah waxaan isku dayi doonaa maanta inaan TradingView iska diiwaan gelino, ka bacdina sidii la iska diiwaan geliyay iyo sidii aad u isticmaali lahayd insha Allah idin tuso. marka aad browserkaaga soo kiciso halkaa waxaad ku qori doontaa tradingview.com. marka aad TradingView ku qorto waxa ku soo baxaya daaqadan. marka daaqadahan ku soo saaro meel kale ha ku tegin. marka hore sign in waa haddii aad account hore aad ku lahayd weeyaan. join for free haddii aan idhaahdana wuxuu oranayaa imika mid cusub samayso. marka join for free baan oranayaa. halka u sareysa wuxuu ku leeyahay username geli. username baan gelinayaa. username baan gelinayaa insha Allah. email baan kana gelinayaa. waxaan gelinayaa tusaale ahaan mid aan lagu isticmaalin oo kale. kan ayaan ku isticmaalin baan filayaa insha Allah. kadib bacdi waxaan gelin doonaa password. ugu dambeyntii wuxuu ku leeyahay password gasho. passwordkana waxaan ka dhigi doonaa password baan gelin doonaa afwan. marka halkana tick baan saari doonaa. halkana inaan robot ahayn ayaan u sheegi doonaa ama wax xaqiijin doonaa. ka bacdi marka intaas dhameeyo waxaan odhan doonaa sign up ayaan odhan doonaa. ka bacdi imika uu diray wuxuu leeyahay soo xaqiiji in emailku yahay mid la isticmaalayo in kale. linkiga wax kale looguma diro. okay ayaan leenahay. maskaxdayda ka uma baahnin imika. waa soo dhacay. activate ka iga soo xidh. hadda waa active gareeyay. active weeyaan hadda. imika waxa u baahanahay imika wuxuu leeyahay sorry magac buu leeyahay geli. aan geliyo magacuuna iska geliyo. kan geliyo. marka uu halkan keeno chart ayaan ku dhufan doonaa. chart marka aad ku dhufato waxa uu ku soo saari doonaa suuqii. dabcan waxa laga yaabaa inaanu adiga sidan oo kale aanu kugu soo saarin oo uu si bilow ah kugu soo saaro. marka waxa aad samayn doontaa right click ayaad odhan doontaa. ka bacdina remove all drawing iyo remove all indicators wixii kugu jira marka uu ka wada saaraya. marka markuu sidan ku keeno halkan ku keeno waxaad iska odhan right click ayaad taaban doontaa. haddii aad dabcan u baahan tahay inaad dark ka dhigatana dark ayaad odhan doontaa. dark ayaad ku dhufan doontaa. haddii aad u baahan tahay caddaanna right click ayaad odhan doontaa. color emailkay ku qoran tahay ayaad tegi doontaa. light ayaad ku dhufan doontaa. marka imika caddaanka ayaan ku yara deysanaynaa. halkan ugu horeysa waxa weeyaan profile-kaagii weeyaan. halkan ugu horeysa oo sign out iyo ba ka samayn kartaa. ma fahantay? halkan waa profile-kaagii. halkan ku xigta waa halkii lacagaha laga dooranayo tusaale ahaan USD CAD oo kale. USD CAD oo kale waa halkii lacagahan ka dooranaynay. halkan ku xigta waa time frame-kii weeyaan. dad u baahan tahay day, dad u baahan tahay week, dad u baahan tahay month, dad u baahan tahay minutes. inaga for hour balimkii nooga dhig. halkan ku xigta waa candlestick weeyaan. halkan ku xigta waa candlestick weeyaan. ninkan waa candlestick hadda baris buu inoogu taagan yahay. baris wuxuu kaga duwan yahay kan kale waa meesha lagu furay iyo meesha lagu xidhay qiimaha ay ku kala sheegayaan. bal aan eegna imika markuu uu buy yahay halkaas ayaa qiimaha lagu furay. halkan ayaa qiimaha lagu furay. halkaas ayaa qiimaha lagu furay. halkaas qiimaha lagu furay. halkaana waa lagu xidhay. haddana kii kale halkaa lagu furay. haddana halkaas lagu xidhay. ka casay beerishkan halkaas lagu furay. ka haddana halkaas lagu xidhay. ka gudbo kani waa candlestick caadiga ahaa ee inta u badan dadku ay isticmaalaan. waa candlestick caadiga ahaa. ka ku xigana waa hello candles.
hello candles waa kii buluug ahaa uun baa cadaan laga dhigay intii buluug gibi uun baa dhexdiiba cadaan noqonaysa. waxaa ku xiga Hellsink baa ku xiga. Hellsink dabcan waa arkaysaa wuxuu kaga duwan yahay isagoo qiimaha ayaa dhinac wada socda. hadduu suuqu down yahayna wada casaan buu ku wada sheegaya, hadduu up trend yahayna buluug ayuu ku wada sheegayaa, waa bearish. marka kan kale qiimuhu hoos u socda ayaa maxaan arkaynaa waxaa ku dhex jira buluug baa ku dhex jira oo soo dhex gelgelaya. marka kan wuxuu kaga duwan yahay Hellsinkigu, kaga duwan yahay isagoo wada casaan ayuu ku wada tusayaa. waxaa ku xiga line dadka qaar baa dabcan yaqaana oo iyagu ku trade gareeya, waana sidii berigii hore ayaa la isticmaali jiray line-ka. ka gudbo waxaa ku sii xiga area isagoo aad iyo aad buu muhiim u yahay. waxaan arki karnaa mar qiimuhu waa kor buu u kacayaa, kor buu sii socdaa, marna hoos ayuu soo dhacayaa. area laftiisu aad buu muhiim u yahay, waana chartkii berigii hore la isticmaali jiray weeyaan area laftiisu. waxaa ku xiga Baslin waan arki karnaa qiimuhu marna hoos ayuu dhacayaa oo wuxuu tegayaa negative-ka, marna kor ayuu kacayaa iyo waxa uu tegayaa positive-ka. waxaan arki karnaa marna inuu qiimuhu hoos u dhacayo oo uu negative-ka tegayo, marna inuu kor u kacayo oo uu plus-ka tegayo. marka waxaa ku xiga Renko iyadu aad iyo aad bay muhiim u tahay, dadka qaar baana ku trade gareeya, imika way naga diidaya, waxayna leeyihiin 1 hour gee, waayo Renko iyada lacag ayaa laga bixiyaa. qofka lacag kala baxay ee subscription-ka ayuunbaa isticmaali kara Renko aad iyo aad bay muhiim u tahay. waxaa arkaysaa marna in qiimo hoos u soo wada dhacayo, marna kor u kacayo, oo dabcan qofkii halkan kasoo galay ilaa halkaas uu faa'iidayo, ka halkan ka galayna ilaa halkaas uu faa'iidayo. marka intaas ayaan ku dhaafi doonaa iyaga candleska. compare iyadu muhiim ah waa iska dhaafi doonaa. waxaan ku xigsiin doonaa indicatorska waa tusayayaal, waana dhowr midhow baa laynoo ogol yahay maadaama oo inagu aynan gadan. haddaad gadatay laakiin in badan baa isticmaali kartaa adigu, laakiin anu hadda ma gadan, dhowr midh oo keliya ayaa la ogol yahay inaad soo gashado. marka laakiin muhiimadeedu waxa weeyaan imika ma ku tusi karaa haa, haddaad u baahan tahay inaad moving averages oo kala soo gashato isagana waa soo geli karnaa. tusaale hadda RSI oo kale u baahan tahay, dhowr indicator ayaan soo gelinayaa. kaana waa soo geliyey okay. iyada kuwan kale financial iyagu wax kuwan muhiim maaha. kana waa alertskii, haddaad u baahan tahay alerts ayaa ku xidhan kartaa. tan waxa weeyaan haddaad rabto inaad saan noqoto, haddaad rabto inaad saan u noqoto ama saan usii socdo. halkan waa iyadu waa full screen haddaad doonaysa inaad ka dhigato. haddaad doonaysan exit ama expire ayaad ku dhufan kartaa. halkan ay ku sawiran tahay kamaradu ama snapshot ay ku qoran tahay, waa markaad rabto inaad la share gareyso kale. tusaale ahaan imika kale shaashada ayaan ka qaadayaa sawir, eeg u fiirso screenshot oo kale. marka aan rabo inaan dad la share gareeyo kale weeyaan, wuxuu ku siinayaa URL-kii ama link-kii ku siinayaa. linkiga haddii aan imika koobiyeeyo ama copy aan idhaahdo, waana share gareyn kartaa, waana save gareysan kartaa. marka imika save gareeyo kasaas inoogu soo saaray. haddaan bal page cusub furo, bal arka linkigaan soo koobiyey baan ku paste gareynaya, kabacdina enter ayaan odhanayaa. waxaad u jeedaa imika inuu share gareysan yahay sawirkii aan sawiray. marka haddaad u baahan tahay iyadana waad share gareyn kartaa. marka haddaan ka gudubno, iska jarno, ka gudubno daaqadaa. sidaas ayaan imika kaga soo dhammaaday. daaqadan kalena imaado, halkan waxaa u muhiimsan trend line iyo horizontal line ayaa u muhiimsan. trend line isagu mar walba hoosta, markuu suuqa up trend yahay hoos ayaa laga sawiraa, markuu down trend yahayna kor ayaa laga soo sawiraa. marka mar walba waa inay laba fiiq ay ku sinaadaan, wixii kale waxba kaama gelin. mar walba inay laba fiiq ku sinaadaan, waxa kale waxba kaama gelin. trend line iyo horizontal line mar walba waxaa la dhigtaa support-ka iyo resistance-ka ayaa la dhigtaa mar walba. marka taasna halkaas ayaa u muhiimsan. haddii aan halkan u imaado, waxaa u muhiimsan Fibonacci retracement.
Fibonacci retracement ayaa u muhiimsan. Fibonacci marka Fibonacci waa laba mid, ama waa extension ama waa retracement. marka labadiiba waxa kuwan hadad u baahan tahay, midna waa trend based fib extension, midna waa Fibonacci retracement. halkan waxa u muhiimsan rectangle kan waxaad u baahan tahay inaad calaamadsato kala tusaale ahaan sidan oo kale ayaa odhan kartaa. kanna waa isticmaali kartaa sidan ayaa odhan kartaa, sidaas ayaad odhan kartaa. kuwan dhan waa calaamadun kuwan gebigoodu waa calaamadun u baahan tahay, sidaas ayaa kana odhan kartaa. gebigoodu waa calaamad. halkan waa tigaskii iyo mataqaanaya, halkan waa tigas waxaad u baahan tahay inaad ku qorto tusaale ahaan trading view sample bay ka tahay inaad ku qori karno. dad u baahan tahay colorka bedeshana waa kan trading view. halkan waxa ku xiga waa buttonskii hell shoulderkii, Elliott impulse wavekii iyo harmonicii baa halkan ku jira. halkan waxa ku xigta halkan waxa u muhiimsan long iyo short. long waa suuq buy ku socdo tusaale ahaan kan oo kale marka trade diyaarsato, halkii aad stop loss-ka iyo TP-ga aad dhigan lahayd, halkii aad horizontal line ka dhigan lahayd ayaa kan isticmaali kartaa. tusaale ahaan imika bal halkaas oo kale aan dhigo, waa kan lambarka guduudka waxaad gashanaysaa stop loss-ka, lambarka cagaarkaana waxaad gashanaysaa take profit-ka. waa long, waa suuqa kor u socda weeyaan kaasi. bal anigo markuu suuqu hoos u socdana waa short ayaa dhiganaysaa. tusaale ahaan halkan oo kale ayaan dhiganayaa, kaba soo qaado suuqan ayaa down u socday, hoos u socday ilaa halkaas. halkii aad doonaysa ayaa jiidaysaa, halkii aad doonaysana waa soo jiidi kartaa. marka mar walba isaga halkaa casna waa stop loss-kaagii, waa halkii exit-kii, labaduba waa exit-kii halkan, kaasina waa entry-gaaga halkaad ka gashay ama halkuu imika taagan yahay weeyaan. kaasina waa stop loss-kaagii, kanna waa take profit-kaagii, marka tan iyada waxa lagu cabiraa bibiska ayaa lagu cabiraa. hadduu suuq up yahayna waa sida, hadduu down yahayna sidan ayaa usoo qaadanaysa, sidan ayaad ugu cabiraysaa. waa kan negative ayuu tegayaa. haddii uu suuqu up yahayna sidaas ayay ugu cabiranaysaa iyadana. marka waxaan rajeynayaa wax kale oo muhiima inaanan ka tegin, intaas ay ku dhan tahay. marka waxaan rajeynayaa in aad wuxuun aad ka fahamteen. haddii aad u baahan tahay inaad ka dhigato tusaale ahaan oo kale dark, hadaad ka dhigataan right click ayada color theme ayaa tegi, dark ayaa ku dhufan doontaa. dark cadaanka waxaa laga yaabaa inta badan inay indhuhu ugu xanuunaan baa laga yaabaa. marka intaas ayaan kusoo koobayaa. waa ku mahadsantihiin dhegeysigiina ama daawashadiina. aad baan idin salaamayaa.